السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal maanta ma raba mowduuc isjeediyo oo ka saabsan taariku salaad ama tarku salaad silinka saw taariku salaad maybu waa nin oo salaada maaragta dayaci iyo tarku salaadna maybu waa nin oo maaragta waqti usraw la isku tukado ilaahay wixii ka dhahi ama wixii abaalsha ay iyo rawaay waxyar mowduuc yar in iska jeediyo alxamdulilah horta ilaaha mahad u sugnaati alxamdulilaahi rabbil caalamiin oo naxariis guudna ilaahay u sugnaati marka walaalayaal may rabna inaan xasuusino horta salaad ina ka dadaalno number 1 waa nabir hadii adiga oo maaragta muslimnimada hadii horta number 1 hadda muslimnimada salaad badil koowa wixii kale inta amal gadaal dhan buraayan number 1 hogaankii muslimka may waa salaad waaye salaada hadii dayacdo adama ilmeeta maaragta diinka dhan dayacaydi waayo diintan markay buwa nawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadarsi waa diin naxariis leh nicmo leh waa diintin ku faylahayd in dunya ilaahay sadejiya waa diinul islaam marka meelan baahan ina maaragta sanbari diinta la sadarsi wixii maaragta oo requirement shaba ina hore rato yelan baahan number 1 may buwa salaada ina ka dadaalo salaada may waa xiriirkii adiga oo ilaahay ka si xiriiriya number 1 salaada wixii kale inta gadaal leeyo amal alamalka suubato sadaq hanagoto wax kasta khayra suubato hadii salaad la'aan eta wal makajir kulli wal makajir buraan wal makajir kulli sho marka meelin baahan sanbar inaga salaad ina xafidno salaad ilaalino jamiica ilaalino waysadana ilaalino sahawa masqalato waasilin waysadaada waa waysada hadii humaato salaada ma ansaas waysada hadii toosto salaadan ila koyto khashu lata إلهي صلاة ما أقبل إلا صلاة خشوع لهات وخشوع مي وإن قلبك حاضر أحاضر لكن صلاة تقضويت مليار كلامتك فكرويت مرك إلهي صلاة سبلنت مقاعدو مرك ما يبوا أمد هورنا ما صلاة أمد هور مي بإلهي بقرآن مي كلاه فخلف من بعدهم خلف الله الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أمد هور مي بهانا مرك أمد مي بقواس دينا مرك أو صلاة الضيعة أو شهودية من الرهويج الرهايان iyo kuwaas leewana roogna waa dadkii had marka meel ila adinta macmaankan iyo waxaan aftiinkan dunyada dadka sirooy ninka salaada mayba iska shisheena suhur asar maqrib iska dardaro taas diidan meel kashaganta male oo ka tilmaansan salaada kul iska dar karta meel ilaahay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kashaa ilaahay ka dhay mijirta marka meelan baahan yahay bir salaad waqtiga ka ilaalada waliba minka faylan jamaa ka ilaalada maqrabka salaada ka ilaalado jamizaayid ka ilaalado raw asarka ishaada kulli marka maati oo ada oo inka dib badan oo maaragta marka ka deer waayo tamanti kalmeel kan targalayna salaada jamiica ka wada. My dear respected brothers, I'm here to talk about today the important about salat. Salat is the tea, like is the mountain, like the way to Allah, the connection. Salat is a connection to you Allah because is the guidance. There's nothing Islam is start when you say Ashhadu an la ilaha illa, you believe Allah and His Rasul, then whatever they tell you, you have to obey them, and the obligatory of Islam, you have to follow them every single step the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did. We have to do it. Everything you do without salat, that is not going to be counted. They are just worthless. One day Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he saw one person praying Asr, late Asr, almost Maghrib, he's praying Asr. So he said, تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق. You see, look at the salat of munafiq. Munafiq always pray late. Like he makes everything easier. Like I'ma pray. That's how we waste his time. So my point of view today is that always control your prayer where you pray, wherever you pray, but it has to be in the masjid because that is where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us to pray salat jamia on the masjid at all time. And make sure you pray on time. Don't make us like, okay, I can pray later or I can pray after 10 minutes. No, as they said, as-salatu ala waqtiha. You have to pray the salat on time, not just your own times. إلى أن ربنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء صلاة وقت جينا مساعد لك إلى وقت صلاة اللي كترجل إن لك هوريس يوم رام الكدم بيسمار وقت صلاة كتب وقتنا لتكذو وإن كنت لمباهن مرك صلاة مدر إن جماعة إلى على ضوء تنبير لمباهن وصلاة من ربنا صاحب ميداي الصلاة على وقت صلاة وقت شل كنت كذو مرك واحد كست هذا خير صوبته هدي بصلاة بنت كذو إن صلاة أول ملك جر مرك
marka rasul sallallahu alaihi wasallam ma araga dad oo salaad oo qof ma araga salaad asar lak maqrab su dhow asar tukudo araga marka may dhahay tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq munafiq salaadas waa ka dheesana tukuda waqti ma ilaaliya waqti rawl isku tukuda marka salaadas abalinteena ilaahay magaado ma aqbalo ilaahay maninka dhigo dadki salaadiyo ma aqbal marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam in shay marka hadii oo dadkii oo maaragta reer naaradkii oo dadkii munaafiq waayo oo salaad intu ku dan taariku salaad naara ilaahay diyaarade marka reer naaradkii marka marka naarta datis iyo may weydiyaan maasho soo malaa'ikta may weydiyaan malaa'ikta may warsadaan dadka say ma salaga kun fi sagara mesin sigali sagar dati because taas dadkii oo maaragta taariku salaad naartil ilaahay diyaari waa ilaahay diyaari may wa sagare la dhahay marka malaa'ikta warsadaas ma salaga kun fi sagara mesin sigali sagar dati dadii marka mesin sigali dhahay marqaalu may dhahaan lam naku min al musallin on may buadato salaad lihin sida salaatu kuda ma ahaan salaad ma butukudo jirnaba. So the people when they die, they go into hellfire. The hellfire, that hell gate is called Sakara. So the angel of hellfire, the gate, they will ask why you guys enter to the hellfire. They will say, Ma salaga kufi Sakara. They will ask them, why did you get into this hellfire? Qalu, they will say, Lam nakum min al musallin. We didn't used to pray the salat, like we didn't used to pray. Or if we was praying, it was making like taking our time, like we're gonna pray, they used to waste the time. Walam nakunu demol miskin, we didn't used to like help or feed the needy, like the miskin, like the poor people, poverty. We didn't used to support them, help them. Wakuna nakudu ma al khaidina, you know. They will say, they will be saying, like, we didn't used to support the needy, we didn't used to believe the deen, we just see the reality right now. And it's too late, we cannot come back to do good deeds. So, market that can article, market my malaik me suala as a message gali narta, that is market made the hayana inaga salad matuku the journey, masake mago the journey, dinkle shaga with that bent I had journey marka, wala shaga marka. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هذا رنت به أتى يقين حتى أركنا دوايا فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي ما أدني شافعي أي نجرجاري وقت شيء ستوليت مركا ميلين بانيا صلاة نمبر 1 هذه صلاة توستو وهي كالجدالس نتوسع مركا لكن هذه لقطة مركا صلاة تكو ذات قارمين قوين عايدين أما سكال انتفاس مركا صلاة سنبر ميلين بانيا إنا جميع كتوكتو مساعد نكتوكتو إسكدينا مساعد كتوكتو haddii awoodayna tahay marka salaada tamil ku tukadaas waqtiga targal salaada waqti ku tuko waqti dambe isku tukada dhow salaada iska dardareema ilaahay ma ogol man lam yusalli fa wa kafir ali bin talib de man lam yusalli fa wa kafir marka ninka kafir kama bo salaad ma butukada ba allahumma najina marka ninka sa kafir ta salaada dambe dibsada salaad ma tukada ba ninka hadii maaragta salaad ma tukada kaase kufri kaase Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu may usun marmay dhahay man lam yusalli fala diina lahu ninka salaada baka tago diinka dhanka ka tagi maana nin oo salaada baka tagi ba salaad buntu kudaan nin salaad buntu kudaan diin male ninkaas maana diin wala ko qoraaw wala kisaaw male marka waxa soo adaab oo intaas qof wasaas ka dhaho hadii salaada ku tukuto may bako halaaw marka sanberi walaalayaal milen baahina salaada ka deedaalno oo wali jamaa ku tukuno Ali bin Talib radhiyallahu anhu said Man lam yusalli fahuwa kafir. Whoever don't pray is a kafir. Means it's a hypocrite. Like the person who don't pray, that means you don't count yourself as a Muslim because Muslim has to pray 5 times daily. So you have to pray. That's the order of Allah subhanahu wa ta'ala give us. So you have to pray. Abdullah ibn al-Mas'ud radhiyallahu anhu said, Man lam yusalli fala dina lahu. Whoever don't pray, like he don't have no deen. Like you don't have a deen. If you don't pray, you don't count yourself. You don't count yourself as a Muslim. Imam Shafi and Imam Malik radhiyallahu anhu, they said the person who don't pray, you go talk to them. You have to pray. They say they used to give them a time. You have this certain time for you to pray. You have to repent to your Rabb, and then you have to pray. They will give him sort of time. If he's still not following or not repenting, he's still doing it. They used to say, they used to call everybody in the community and then tie them up and then kill them because you don't count that person as a Muslim. But Imam Malik said, whoever don't pray, used to they used to lock them up in the room until he repents sincerely.
start praying. When they see he is acting good and he's praying good, that's when we used to let him go. So that's what the argument used to have. So if you don't pray, you're gonna join the group that come into Sakara, the hellfire and Akhirah. You're gonna be the group of Qamun, Fir'aun, Haman, Umayyah Tamim, Abu Jahl, all the people that who did wrong, biggest thing in the earth. You're gonna join them, these people. Marka haddii maaragta ilaahay wiikin diri meelin baahan in ilaahay waxa kuin kareebna kareebtaadin baa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wiikin kareeb meelin baa ina kareebnaato marka mayba haddii adiga salaad intu kun salaad lagu karwa salaad mayba dheh marka imaam Shaafi iyo imaam Maalik mayba iskaraayna imaam Shaafi mayba dhahay ninka salaad intu kudayn meel weel jiri meel weel dhahay dadka ninka salaad mayla dhahay salaad tuko ilaahay gaan sanago toobashan ilaahay intu salaad tuko marka muddo yara la siiya muddadaas yar haddii ninka walba inka isku bedelooyin oo maaragta tooban inshaana meel weel dhahay ninka la hire oo dadka dhana ma isku weere banaanka la hire ninka la dilay imaam Maalik ma dhahay marka qofkaas haddii salaad bantu kudoon salaad tuko la karwame beelana hiraaya marka minka hiraaya ilaa isaga ninka isku toobashan salaadaas ku toosa waqtigaas la fakiye marka saasa iskaraayeen marka haddii mayba adiga oo maaragta salaad intu kun mayba kamid ah dadkii inka dambi weynaan dunyada samaran may kamid ah maana Qaamun, Fir'aun, Haman, Umayyah min Khalaf, kuwaas kulli Abu Jahl, kuwaas kulli iskam groupkaas kamid ah marka meelan baahanya inta adiga nool salaada tuko maalma kamid ah may dhahay al-Imam Dahabi marka may dhahay qisaka sheeka oo may dhahay maalma kamid ah qof iyo walaalis dhimatay safar jira safarka kooy marka gabadhiya la qaadi la suduugi markii heeg la suduugi la dhamaysay marka xaafid yarkii kooy marka walaalis marka suduugi xaafid kooy may xasuusada jeebsha iyo waxan ka jiray xasuusi oo qatan dahab wax shay gaalka ka ahay aqtas iyo baawala marka araada godaan iyo ka dhahdii marka may dhahay hawaala nagodo alaab muhiim ah in ka dhahdii marka nagadi awala sifelig ina walahi inka dhadhiisa baso bara marka saan dhoo mebe ko deb ya ko horkooy markii suroor ninka nahi aafida seedi ay meehi walaale may soo bijirta may marka qabro wal inka dhiyo nagalis ko baso rawaay he qabro may ka arawe mana deb la ko horooy walaale la adaawe may dad horto walaala baari ahayd insa ma far wal kasta oo wanaag iyo community ka aabi jirtay ana ninka aabi jirtay wal kas wanaag nin sabab walba laak hal shay ana ka karwaay walaala may waa salaad tukudaan marka walaala marka hala sheeko marka anka karwaay ma inta kale inta binaadilin ko feelaad marka may wataas may ku tusayto wana kasta suubato hadii salaad baad suubin intu kudoyna wal marka jir marka xisaab magalaas marka walaalayaal may iska dardaaramaane nafday dardaaramaane salaad waqti ka soo dadaalo inta aad nool fursad qabto nabar hadii dhimato waqti ka fursad ka ilaahay ka siiyo mal fursad may ka siiyo hadii halida ajirta halaasa fursad ka siiyo labaata hadii sadaqa hadii afarta hadii because كيف همين كان لدالي همين كان دموضوع مهرات دموضوع كوبا أورك أسكت دموضوع لكن إلهي أمريكا هذا جرت سكديرس ميلن باهين إن إلهي حستو وينيت ونرسول صلى الله عليه وسلم وينيت وميلن باهين لكن هذه صلاة دي إلهي كنتير هذا كوكو مشغولو ولا لي تاس النصيب دروي ما ينزل دار ما نفتا ولا لا إنكيرن إن سنبل صلاة كددالنا وإنك صلاة تكوداو عن دنيس نورس مركز نورس دب مجالس وإلهي مركوي هذا ويجيستون كسيه إلهي ملك داي إلهي ما بدأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من رزق وما أريد يضيمون إلهي ضوي مركا القرآن سورة الجن ما كده مركا بنادين يجيني من أور إن يعوذا بس والكلام يعاونه إن يقوديا أما يتشكى والإنسوبة مليان يعوذا لك بس مركا إلهي أو سو أبو ذكر أنت أمدا دان لله أمد كلام شهادة ذكر لكن أساس كان هاريس إنه هاريس ضوي يا مركا مين استردارمان ولا ميل الميل كسكنتن صلاة دانك الدلالة صلاة دات توصل الدنيا ذات توصل صلاة كذا أرك تدبات ممكن كبويد أما دي أرول تكدبوا ممارات كدبوا وحكست دبات الزراعات ففروا إلى لا إله إنه إله توبشر إله يفيد إله because إن بني آدم من برسول صلاة دمي كل بني آدم خطأ وخير خطاؤون التواب الميل بني آدم دم جفه لكن أي كفيلن إنك جفش سكناجد إله أن توبشان مرك إله إنك ديكو نفسنا نجد بدن وإله إنسان نجداس وقت كاس إله إنك ديكو قلوبت إله كهيرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ديجي أما الودد اسمه الرهي إله إنك ديكو إله إنك أنفو أنت يا رمز درسي أدي أنا جفين نفس الشيء دانك أدي سوبين خير إله إنك واسيو الله بالله توفيق سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك
as I was saying, everything you do for the sake of Allah. Don't do for show off, because there's people who just pray when they have a visitors or when they go somewhere new to them. So always pray for the sake of Allah, because if you pray because somebody will say something good about you, that prayer will not gonna count. Always pray for the sake of Allah. Always do whatever you do for the sake of Allah. Don't do to look a name. That's my reminder of that today. May Allah guide us, all of us. We are human beings. We make a mistake, but the mistake we make, may Allah forgive us. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say, "Kullu bin adam khata wa khayru khata'un at-tawwabun." All human beings, they make a mistake. Everybody will make mistake, but the mistake you make a repentance, for sincere repentance. So Allah will forgive you and guide you to the right path. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.